Assalaamu calaykum. Waxaan halkan ku soo gudbinayaa nuxurka buugga Soomaalnimada sidee laga baxaa ee uu qoray Cabdisiciid Cabdi Ismaaciil. Inta aan ku jirno barnaamijkan waxa aan dul istaagi doonaa qodobada kala ah xaaladda Soomaalnimada adduunka, waa maxay Soomaalnimo, yaa sabool ah, aragtida Islaamka iyo reer galbeedka ee Soomaalnimada, miraha ka dhasha Soomaalnimada, maxaa keena Soomaalnimada iyo sida loola tacaalo Soomaalnimada. Inta aan bilaabin muuqaalka waxaan u mahadcelinayaa Injineer Axmed Dhuubow oo ah ninka soo koobay nuxurka buugga Soomaalnimada sidee looga baxaa. Aan ku bilaabnay xaaladda Soomaalnimada adduunka. Inkastoo aadmigu si guud qarnigii 20aad horumar ballaaran ku tilaabsaday, haddana si isku mid ah loogama wada faa'iideysan oo ma jirin isku dheelitirnaan uu aadmigu ku qaybsaday horumarkaas la gaaray. haddana ayada oo aysan jirin tirakoob ka run sheegi kara xaaladda aadanimo ee xaaladaas ayaa haddana waxaa la helay tirakoob aan lagu farxin, kuwaas oo muujinaya heerka Soomaalnimada ee dunida. Tusaale ahaan, tirakoob uu sameeyey Bangiga Adduunka ayaa sheegaya in 6 bilyan oo dunida saaran dalalka soo koraya sanooyinkii 1987, 1990 iyo 1998 ay 2.8 bilyan oo ka mid ah ku noolaayeen wax ka yar $2 maalintii, halka 1.2 bilyan oo dadkaasi ka mid ah kuna nool qaaradda Afrika ay ku noolaayeen wax ka yar $1 maalintii. Waa maxay saboolnimo? Saboolnimadu waa ay noocyo badan tahay, waana arrin marba dhinac loo eegi karo. Sidaa daradeed ma laha qeexitaan sax ah oo la isku raacsan yahay, balse taas beddelkeeda waxay micnaheedu qaadanaysaa hadba goorta iyo goobta la joogo, iyadoo oo lagu jaangoonayo dhanka bulshada. Tusaale ahaan, haddii cabirka micnaha saboolnimada laga qaato Soomaaliya, waxa ay noqonaysaa mid Mareykanku uusan sabool yeelan. Dhinaca kale, haddii xariiqda Soomaalnimada laga cabiro nolosha Mareykanka, waxa ay ka dhigan tahay in Afrika oo dhammi ay sabool yihiin. Soomaalnimadu waxa ay noqon kartaa in lagu guuldareysto in la qabtiro waxyaabaha laga maarmaanka u ah nolosha wanaagsan. Midda ugu xun waa in qofku uusan damaanad qaadi karin wixii uu biri quudan lahaa. Waxaa Soomaalnimada loo qaybiyaa saboolnimo dhammaystiran iyo saboolnimo nisbi ah. Saboolnimada dhammaystiran waa in waxa uu ruuxu heli karo ay ka yaraato in ay daboosho heerka ugu hooseeya ee nolosha. Aragtida Islaamka iyo tan reer galbeedka ee Soomaalnimada. Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam waxa uu leeyahay iman rumeyn ruuxii dhira ku bariya deriskiisa oo baahan. Qoraaga cutubkan uga hadlayo si faahfaahsan mowqifka uu Islaamku ka istaagay Soomaalnimada, balse waxa uu tala ahaan u soo jeedinayaa in cidda doonaysa in qodobkan si wacan oo faahfaahsan u fahanto inay akhriso buugga Yuusuf Al-Qadraawi Mushkilatul Faqri wa Kayfa Caalajaha Al-Islaam. Aragtida reer galbeedka ee ku aadan Soomaalnimada waa in ay lagama maarmaan tahay in qofku uu sameeyo dadaal badan si uu u hagaajiyo xaaladiisa dhaqaale, taas oo keenaysa in bulshadu horumarto. Waa maxay miraha ka dhasha Soomaalnimada? Si kooban, waxaa Soomaalnimada ka dhasha in qof walba oo sabool ah uu sameeyo falal qaraar oo ay duruuftu keentay. Soomaalnimadu waa ibta xumaha oo idil. Xumaha ay Soomaalnimadu keento waxa ay saameynayaan qofka, qoyska, bulshada iyo caalamka. Waxaa aad u bataa dambiyada ay dadka baahina ku kacaan, waxaana ka mid ah in raggu si daran u adeegsadaan maandooriyaha si ay cirbad suuxdin ah oo dhibta ilowsiisa kaga dhigtaan, dumarku jirkooda ka ganacsadaan, carruurta la iibsado, daroogada sida sharci darrada ah looga ganacsado. Waxaa 1995 lagu qiyaasay $400 bilyan, halka tirada iibsiga dumarka iyo gabdhaha lagu qiyaasay 1.8 milyan oo qof. Waxaa kale oo ay Soomaalnimadu dhalisaa in qofka baahan uu ku duulo deegaan kale oo nabad ah, kadibna uu carqaladeeyo. Miraha Soomaalnimada waxaa ka mid ah in dadka gaajaysan ay deegaanka dhaawac u geystaan. Sidaa daradeed, si horumar waara loo gaaro iyo deegaan fayo qaba loo helo, waa in la yareeyaa Soomaalnimada. Sanooyinkii burburka Soomaaliya, dhibka ay dadku deegaanka u geysteen sida jaridda dhirta, dhoofinta xoolaha iyo duurjoogta waxaa keenay Soomaalnimada. Sidaa daradeed, si deegaanku u helo fayo dhowr buuxa, waa in la yareeyo Soomaalnimada baahsan ee dadka Soomaaliyeed la tiicayaan. Maxaa keena saboolnimada? Si guud, waxa Soomaalnimada keeno waa 2 sababood: sababo khiyaali ah iyo kuwa dhab ah. Waxaa dadka saboolka ah lagu eedeeyaa caajis, shaqo nacayb, balse xaqiiqadu waa in qofka saboolka ah uu ka shaqo badan yahay mid ka ladan, oo dhowr saac oo xiriir ah ay shaqaynayaan, weliba shaqooyin adag oo aan isku mid ahayn. Sidoo kale, qaamuuska dadka saboolka ah kuma jiro ereyga fasax. Waxaa kaloo saboolka lagu eedeeyaa in taranka badan uu keeno Soomaalnimada, balse dadka arrintaas u kurgalay waxay leeyihiin waa uu jiraa xiriir qoto dheer oo ka dhexeeya, haddana ilaa iyo hadda lama hayo markhaati caddeynaya in taranku uu keeno Soomaalnimada. Waxa kaliya ee la taaban karo waa in kororka taranku uu yahay calaamad lagu garto Soomaalnimada, balse uusan ahayn sabab keento Soomaalnimada. Waxaa kale oo lagu andacoodaa in waxa Afrika haysto ay dabeecaddu sidato, taasoo ka dhigan in Soomaalnimadu tahay musiibo cirka ka timid, balse xaqiiqada ayaa ah in Soomaalnimada uu aadmigu abuuro, ayna Soomaalnimadu ka dhalato siyaasiyiinta iyo siyaasadda. Qofka saboolka ah ee taranka badani waxa uu qabaa in ubadku uu geli karaan boosas caymiska ah. Sababaha dhabta ah ee Soomaalnimada keena waxaa ka mid ah garbaduubka dhaqaalaha siyaasiga ah, ciidamaynta dhaqaalaha iyo faafidda musuqmaasuqa.
haddaba sidee loola tacaali karaa saboolnimada? waa ay ficnaan lahayd xal kama dambays ah in laga gaaro sidii loo ciribtiri lahaa saboolnimada, balse taasi ma dhici karto, caqli galna ma ahan. sababtuna waa inta ay dheriga jirto waa in baahi jirayso. sidoo kalena dunidu ma ahan janno ee waa duni si ay isugu dheelitirnaato u samaysan in wax walba lidkooda jiro. waxaa taas lagu bedeli karaa habka loo yareyn kara saboolnimada, taas ayaana mudan in la gorfeeyo lagana run sheego. cidda ku fikiraysa in saboolnimada la tirtiro waxa ay ku jirtaa riyo maalmeed. saboolnimada waxaa keena doonista aadmiga si la mid ah waxaana looga bixi karaa ama waxaa lagu yareyn karaa isla doonista aadmiga. Soomaalidu waxa ay tiraahdaa wixii rag u kaco rabbina aqbalo waa rumoobaan. maadaama dad badani ku doodayaan in aysan dadku sinaan karin ayaga oo leh sida aysan shanta farood u sinaan karin in dakhliga dadkuna uusan sinaan karin, ayaa waxa uu qoragu leeyahay waxaa dhibka loo arko ayaa ah inaysan suurtagal ahayn in faraha qaar ay 1 ama 2 mitir ka dheeraadaan kuwa kale, waayo dhirarka noocaas waxa uu keenaa in faraha gaaban ay gamaan dhammaan shaqadoodii. qoraaga waxa uu xalka kusoo koobayaa in la helo xukun wanaagsan, samaynta horumar u heliya saboolka, horumarinta beeraha, xoojinta maalgelinta yaryar, talo iyo shaqo qaybgelinta saboolka, maalgashiga awoodaha saboolka, samaynta ururo u dooda saboolka, xoojinta habdhaqameedyada bulshada wax isugu taraan, in la helo iskaashi adduun iyo waxqabad loo dhan yahay.